Conversation. inta labaad ee meeriskaasi inay tusaya waxay tahay in la tiriyay xilli ay daraawisho xoog yeelatay oo ay sayidka garab taagnaayeen rag uu isku halayn karay oo ku dhaadan karay una suuragelin karay inuu xoolaha jigjiga daaqaya iyo dad kaleba u goodiyo isagoo nugaal fadhiya. wuxuu u muuqdaa meeris uu tiriyay nin caraysan in badan la hoojiyey garabkiisa laga baxay hase ahaatee markaa isbiday awood uu ku aarsan karo. dhegaystayaal waliyayaashaas aan ka shakiyey warintooda intaan ka gudbo aan idiin dugo suugaanlihii soomaaliyeed ee caanka ahaa allaha u naxariistay muuse galaal oo 1966 la weydiiyey maansida sayidka iyo tixdii ugu horreysay. muuse galaal oo sayid maxamed iyo gabayadiisii ka faalloonaya wuxuu yidhi sadankii daraawiishta 22 kaa sannadoodii daraawiishi dagaalamaysay waxa ay gabayadu aan ku noqdeen waxay ahayd waqti dagaal jira oo dagaalkaasuna jihaad yahay wadaniya ah oo jihaadka wadaniyada ana uu ka madax yahay nin xagga diintana sheekha xagga gabaygana aan nin la gudbooni waqtigaa sabankiisa aanu noolayn. waxaa la yaab noqotay ina cabdilla xasan oo sheekh loo yaqaano nin wadaada loo yaqaan isaga iyo reeraha oodoo dhan inuu intuu jihaad bilaabay mar qura uu soo saaray balaaqa gabay iyo murtiya oo tafsiisha siduu u dhisan yahay ee saddexda ah aana hortii cidina isku deg oo weliba ku aana inuu gabayga intuu ka yaqaan geeraarka ka yaqaan oo jiiftada ka yaqaan oo dhaantada ka yaqaan oo gabay carbeedka ka yaqaan oo cayda ka yaqaan oo ammaanta ka yaqaan oo dhirta iyo xidigaha iyo dabaylaha iyo badda iyo shareecada gabayga lagu tirsho intaas ay isugu wada mid yihiin. taa waxa u raacay isaga oo gabayga uu maanta tiriyo ee yidhaahdo halkaasaan ku duulaya halkaasaan sidaa ka yeelaya barito sidii ka dhacdaa oo weerarkii iyo colkii uu yidhi waa ku dhufanaya ay ka dhacdaa. berigii aanu taariikhda qoriinkeeda bilownay ayaan maalin waxaan weydiiyey nin odaya oo gaboobay oo daraawiishtii ahaan jiray ayaan idhi ninka kan miyaa gabayga lagu soo tuuri jiray sidee buu u bilaabay tixdii ugu horraysayse ma ii sheegi karaysa? cabbaar intuu aamusay maxamuudaalin baa la yidhaahdaa waa reer buro ayuu wuxuu igu yidhi waxaan odayaal ka maqli jiray berigii gabayga intaanu bilaabin ayuu maalin la yidhi gabayo markaasuu yidhi waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaamo ah isha waxaan ka qaadana aniga u ilaala ah arrin iyo wixii i egna uurkaydan ku haysta. markaa ayaan anigu halkaa waxaan ka gartay inay waktigaasu ahayd wakti aanu weli jihaadka bilaabin laakiin wuxuu damacsan yahay ee soo wada ay cad yihiin. markaa sabankaa daraawiishta gabayga jooga wuxuu ahaa gabaygii kale dunida socday oo dhan qorax ku noqday oo gabayaadii kaloo dhammi shiiqay oo aamusay. sabanka ayaynu maraynay oo uu gabaygu diin iyo jihaad iyo gaaladana gees ka yahay iyo wax alla wixii raacsan nacaaya iyo xujiynayo dadkii kalena waxa waa loo jawaabi jiray jawaab waa loo soo diri jiray laakiin la dhowrsanayo. waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah isha waxaan ka qaadanaa anigoo ilaalo ah arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa. waa masafo sida ila tahay aan xujo lagu hagaago loo heli karin haddii la yidhaahdo maansadii ina cabdilla xasan tiriyey bay ugu horraysay. rag looga qaateen ahina waxay ka markhaati fureen hubaali waa halkeedee in fartiisii ku taal anigana hawraasan iyo diili midna igama dhowrtaan. si kastaba ha ahaatee ilaa maanta nooma suuro gasho inaan nidhaahno gabay hebel ama geeraarka magacaas le ayuu sayid maxamed curinta maansada ku bilaabay annaga oo hubna. sidaa daraaddeed waxaan door bidayaa
inaannu dooddaa meesheeda ku dhaafno una gudubno kafaalaynta astaamaha suugaaneed ee uu sayid maxamed maanse ruugyadii la da'da ahaa kaga fooray. sayid maxamed waxaa isugu darmaday awood siyaasadeed iyo aftahanimo ballaaran. waxaa gabaygiisa loo xusuustaa ama loo jecel yahayse ma aha awooddaa siyaasadeed ee 20 sano gacanta ugu jirtay daraaddeed. haddii aynu awooddaas siyaasadeed dhaafno oo gabaygiisa uun ku ekaano waxaa dhab ah sida maanta loo jecel yahay in loo jeclaan lahaa amaba ay maskaxda dadka ugu waari lahaayeen. rag badan oo aftahan wada ah ayay isku kal noolaayeen, hase ahaatee siduu sayidku ereyga habboon u heli jiray uma ay heli jirin. aqoontii diineed ee uu ku xeel dheeraaday iyo daalacashada kutubta suugaanta ee carabta ayaa gabaygiisa u yeelay garaweyne iyo qotodheeri waaritaan u soo jiidi kara una soo jiiday. intaa ka sokow wuxuu ahaa nin aad u maskax furan oo nolosha degaanka soomaaliyeed u dhuundaloolay, dabeecadda dadkiisana aad u yaqiinay. taasina waxays u suuro gelisay ujeeddadii uu ka maansood is yidhaahdaba inuu ku sugo oo meesha ugu wacan uga soo haro. hibo aftahanimo, barashada suugaanta raggii ka horreeyey, aqoonta diinta iyo ku-xeeldheerida dabeecadda soomaalida ayuu ku mutaystay inuu boqornimada maansada muddo dheer oo tagtay hantiyo, muddo dheer oo soo socotana aan cidi kula loolami doonin. gabayada iyo geeraarada faraha badan ee uu jihaadkii uu waday kaga hadli jiray maaha ee wuxuu ka gabi jiray ujeedooyinka kale ee ay soomaalidu jeclayd isagana ku jeclaatay. gabay walba oo uu tiriyo waxaa ka dhadhama qayb ka mid ah dhaqanka soomaalida, gaar ahaan tilmaanta geela iyo fardaha, xifaalada tolalka, tilmaanta daaqa iyo masalooyinka diiniga ah ee uu dadka caqiidada islaamka ku bari jiray. inkastoo uu arrimahaas ka maansoon jiray, haddana gabayadiisii badnaa intooda gacantayada soo gashay waxay u badan yihiin kuwa halgankii daraawiishta ku lug leh oo uu raggiisii ku guwaabinayay ama naftiisa ku daafacayay ama uu cadowgiisa dibadda iyo kii gudahaba ku dacaayadan jiray. gabayada jaadkaasa oo la odhan karo waxaa lagu magacaabi karaa suugaan kacaameed ama suugaan halgan oo wax weyn daraawiish u tartay, ahaydna wixii u suuro geliyey inay halis kasta wejiga saaraan oo ciidan ka hub badan weerar joogta ah ku hayaan iyagoo ku luuqaynaya maansooyinka aabbahood sayid maxamed. ayaanu dhegaystayaal toddobaadyada soo socda hadda wixii aanu ka gaaro idinka soo tabin doona. dhegaystayaal, aniga oo weli idin dhex mushaaxsiinaya badda mahmaahda waxaanu soo gaarnay sidaan idinkula ballamay goortii aanu dhex geli lahayn mahmaahda qaarka abtiriskeeda la yaqaan ee qofka horraantii laga maqlay weli la xusuusan yahay. barnaamijyadii hore sidaan ku faahfaahiyey mahmaaha waliba qof bay ka timid oo bilowgii oraahdeeda iska lahaa, hase ahaatee muddo kadib ayaa qofkii la iska iloobaa oo iyadii oo aan aabba lahayn la iska adeegsadaa. taas macnaheeduse ma aha inaan la xusuusnayn qaar weli la adeegsado iyada oo curiyaheedii la aqoonsan yahay. ha la aqoonsanaadee haddana uma fududa oo cilmi baaraha way ku adag tahay inuu hawraarsan yidhaahdo kolka lagu yidhaahdo mahmaahda sidaasa waxaa yidhi hebel hebel. had yeeshee cilmi baaraha waxaa hortaal su-aasha ah maxaa u daliila waxaa iyo waxaasi inay yihiin sida lagu sheegay. maxaan rag allow ku rumaystaa hebel hebel inuu mahmaa hebla isagu lahaa. ragga suugaanta qaarkooda baaristu ay ka dhab tahay siday u og yihiin kolka gabay inta loo keena lagu yidhaahdo hebel hebel maansayahanka la odhan jiray ayaa tiriyey. waxay u leeyihiin tabo ay runteeda kaga salgaaraan. waxay dib u dhagaystaan maansadii ay maansayahankaas horay uga hayeen. waxay kol labaad ku noqdaan erayadii uu adeegsigooda u badnaa, musawiradii uu samayn jiray iyo guud ahaan dhismihii iyo xeeladihii farshaxanimo ee ay maansadiisu badiba ku tilmaanayd. intaa kadib iyagoo ragga suugaantu weli hubinaya hebelkaasi inuu gabaygaa leeyahay iyo in kale waxay u leexdaan dersidda noloshii hebelkaas iyaga oo raba inay ogaadaan haddii ay jireen sababa ku qasbi karay arrinta gabaygaa lagaga hadlaayo inuu kaga hadlo. isku soo wada duubo, haddii aad ruux suugaaneed tahay dareenkaaguna uu soofaysan yahay waxaa hubaala inaysan fududayn gabayaa aad in doora maansadiisa ka hayso intaad qaldanto inaad rumaysato kuwo kale ousan lahayn asii loo nisbeeyey.
aan sii faahfaahiyo siina tusaaleeye waxaan u jeedaa inaan idhaahdo suugaanlaha dareenka fiicani kolka uu 10 qura ka yaqaan maansadii badda ahayd ee sayid maxamed cabdulla xasan kadibna loo keeno tix 11aad waxaa hubaala inuu shakiyaayo haddii uu taa cusub ka waayo fartii sayidka iyo hanaankii dhismaha maanso ee lagu yaqiin haweenka beesha wada ahi waagii hore way isfar aqoon jireen oo raarkii hebla samayso way ka garan jireen kii aysan samayn raar baa la arki jiray si foolxun loo unkay geediga isu hayaa aanu adkayn amaba ay meeliba meesha kale ka dhumuc weyn tahay ama aanu marinka lagu qurxiyo bilic samayn iskuna sargoonayn haweenay farshaxanimo lagu yaqiin ayaa la oran jiray hebla ayaa raarkan samaysay dumarkii heblada ay isfar yaqiineen ayaa diidi jiray oo oran jiray ha ka yaabin raarka sidaa lagu ebiyey heble hebel unugiisa iyo dhammaystirkiisa midna ma laha tii diiday baa lagu oran jiray maxaad ku tiri markaas bay jawaabi jirtay farteedii baan ku ool askariga isna tababarka wacani uu kala yaqaan qaybaha qoryaha iyo hubka guud ahaan dhowr qori oo inta la furfuray qaybahoodii la isku dhex daadshay ayuu kala garan og yahay oo qayb walba qorigii laga soo saaray dib ugu celin karaa sidoo kale farsamo yaqaanka baabuurtu waa makaanige degdeg buu u kala garan karaa una kala sooci karaa qaybaha gawaarida jabaanka talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska taa haddii uu ku guulaysan waayana farsamo yaqaan wacan noqon maayo wuxuuna halis u yahay inaan baabuur dambe loo geysan waxaa intaasba la mid ah amaba ka hawl badan ururiyaha suugaanta aan qornayn oo looga baahan yahay hubsiino dheeraad ah dareen faneed niyad sami cilmiyeed iyo aqoon guud oo ay ugu weyn tahay aqoonta taariikhda iyo degaanka uu suugaan baaraha ka yahay waa inuu malayn karaa hebel hebel maansada ka imaan kartaa siday u ekaan karto iyo wararkii iyo suugaantii uu hebelkaa horay uga haystay ama uu uga maqlay haddaba aan hoos u soo daadegay tabahaas maansa baarista loo adeegsan karo ma loo adeegsan karaa mahmaahda kolka ay dhacdo in hebel hebel loo nisbeeyo inkastoo lagu ducaysto ilaahow haa iyo maya mar ha naga wada yeersiin haddana waxaan qiyaasayaa su-aashaydaa jawaabteedu inay laba weji yeelan karto oo haa iyo maya ay mar qura xamili karayso waa haayo suugaan ururiyaha waxaa bal horta u furan inuu u dhabagalo ujeeddada mahmaahda iyo nooca degaanka ay aanada u tahay kolkaa kadib ayuu u leexan karaa inuu ogaado sheekada ka dambaysa iyo sababihii hebelka loo nisbaynaayo ku jiiday inuu ku tiraabo ninka lagu sheegayaa haddii uu degaan beerood ku abtirsado mahmaahdana uu dhaqan raacata ka muuqdo suugaan ururiyaha waxaa u bannaan inuu ku gacan sayro uuna u qaato curiyaha mahmaahdaasi inuu dhul xoola lagaga nool yahay ku dhaqday dadka xeebaha ku nool oo kalluumaysatada ah amaba reer magaalka ahi mahmaahaha geela iyo dhaqankiisa ku saabsan uma ay badna inay ku tiraabaan malahayga marka qura ee ay soo qaadeenna waa markii ay ku mahmaaheen mahmaahda geyigan banaadirey dadkiisa caanka ku ah ee ku tusinaysa geel iyo iyagu inta ay isu jiraan waa mahmaahda tiraahda cimrigaa raagay geel dhalayana waa ku tusaa jawaabta su-aashaydii sidaan soo sheegay haddana waa mayo tabaha nisbada maansada aan qornayn lagaga salgaari karo nisbada mahmaahda lagagama salgaari karo waxaana jira sababa sidaa ku wacan tan ugu horaysaa waxay tahay ma jiraan mahmaaho qof keligii yeelan karo oo sida maansada u fara badnaan kara oo kuwa cusub oo aad heshay lagu dirsooci karo waxaan u jeedaa qofka badanaa waxaa loo xusuusnaadaa dhowr mahmaahood waxaan dhaafsisnayn dhowrkaas oo dhaqanka degaanka mooyee aan lahayn astaamo ka dhaxeeya oo hebelna loogu ogolaado hebelna loogu diido waa marka labaade kolal badan suugaan ururiyaha waxaa la soo gudboonaada mahmaa hebel hebel loo sheegayo oo ka hadlaysa murti iyo xikmad guud dhaqan iyo degaanna aan tilmaamayn taasoo inuu rumaysto mooyee aan wax kale u bannaanayn si kastaba ha ahaatee aan idiin soo bandhigo mahmaahda qaarka weli la xusuusan yahay qofkii ku tiraabay iyo haddii ay sheeka ka dambayso sheekadii ka dambaysay aniga oo ka afeefanaya inaanan 100% hubin hebel hebel mahmaa hebla inuu aabbaheed yahay
waxaa laga yaabaa markaad maqasho mahma heble aniga oo hebel u nisbaynaya inaad booddo oo aad igu diiddo adigoo eex iyo aqoon darro miduun igu tuumaaya taasoo ay kuugu wacan tahay isla mahmaahdaas inaad u maqli jirtay hebelkii aan ku sheegay mooye hebel kale arrintaasu mahmaahda oo keliya kuma ekee dhinaca maansadana way ka dhacdaa sababtuna mid weeye oo waa qorid la-aantii af soomaaligeenna aynu kan reer hebel waa xun yahay iyo kan reer hebel baa ka fiican marba haddaan dhaqan mid a lagu heshiinayn asee nin walba uu qumanihiisu qoorta ugu jiro waxaad moodaa in la isla gartay garsid iyo isbarbardhigid mooye inaan dhaqamada bulshooyinka seeraha xumaanta iyo samaanta loo kala qaydin meelkeeda waxaan soo idhi dhaqanku waa muraayadda aan mirirka lahayn ee laga toydo hababka nolosha ee ummadaha soomaalidu ummadahaas aan sheegayo ayay ka mid tahay xilli kastoo ay ahaatabana dhaqankeedu wuxuu si weyn wax inooga sheegi karaa hababkii nolosheeda gaar ahaan habkii nolosha raacatada ee aynu u badnayn welina aynu u badannahay sugaanta soomaalida oo badanaa dhaqankaas soomaalida xambaarsan kolka aad dib ugu noqotid waxaa ku hor imaanaya kitaab baaxad leh oo kuu sheegaya anshaxyada qaarkii awowayaasheen la wacnaa iyo qaarkii la xumaa malaha suugaantu waa kitaabka aan qornayn asiga keligiis ah oo wax la isku halayn karo inooga sheegi kara taariikhda degaankeenna dhaqamadeenna iyo heerarkii ay horumarka fakarkeennu kolba kusoo hakadeen doodaas ayaan aad u rumaysnahay mar walbana waxaan qasab isaga dhigaa inay suugaantu ii noqoto kitaabka aan la tashiga ugu noqdo kolka aan doono inaan ogaado arrin hebla siday soomaalidu ka yeeli jirtay iyo anshax hebel indhahay ku eegi jirtay waxaan dhagaystayaal maanta ku tashanahay inaan isla eegno soomaalida raacatada ah iyo dhaqankeedii martidu siduu ahaa soomaalida raacatada ah markaan leeyahay waxaan ka saarayaa soomaalida beeratada ah kuwa xeebaha ku nool iyo kuwii magaalooyinka waayadii hore soo degmaystay raacatada oo aan ka soo jeedo waayana aan u dhabagalay oo keliya ayaan isku soo koobi doonaa maanta qoyska soomaaliyeed ee raacatada ahi wuxuu jecel yahay inuu dego berrin xoolihiisa daaq ugu filan biyo ceelna ay uga ogog leeyihiin wuxuu jecel yahay balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qasku daboolay inuu ku agmayraco subaxdiina ciidan la'aan kaga haro kadimada geela fadhiyada looda wagannada gammaanka iyo tirooyinka ariga ah ee uu leeyahay barwaaqo adduun maalintaa kama maqna qoyskaasina uma qabo xamdi eebba mooye inay wax kale u bannaan yihiin ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaa kol walba lama helo haddii dadka qaar helana looma wada sinna roobku xilli buu ku yimaadaa wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha ingega dayrta iyo biyaheeda guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa diraacda iyo aroorkeeda xilliga roobku hadduu xumaa qoyska raacatada ahi waa walwalaa aroorka dheer buu ka baqaa dayr iyo xoolaha gaarsii wax aan ahayn buusan ku fakarin duqa reerku habartuu haaraamaa habartuna carruurtay cadhadeeda kula dhacdaa wiilasha waaweynina kurayaday dhangadahooda ku boobaan waxay weliba sii daran tahay kolka ay ceelka iyo carshintu kala fogaadaan oo geelu waaba adkaystaaye ay lo-du 3 qab noqoto oo ay banaaxiga tahli weydo aryuhuna waxay guul oon iyo guul wabax ku jiraanba ay doon u bataan 2 bilood ilaa 3 kolkii canaabtaa lagu jiro ayay cirka qaawan iyo indhuhu is-eedaan daruurtii soo korodhaba inay di'i doontaa laga fishaa markay caad isu rogtana huq iyo taa hoose ayay reebtaa xoolihii oo markaa soo xerooday badankood aan haruubka loola gelin daal iyo nacfi xumo dhacsaan lala yahay ruunkii kan looga rug doorsan lahaa uu odaygu ka talinaayo ururada iyo afagaaladana uu kor u dhowrayo ayaa bulaan iyo qufac beenahi soo yeeraan bulaanka iyo qufacuba waa digniin waa rag doonaya inaysan reerka ogaan la'aan ardaaga ugu soo geline iyagoo laga sii warqabo loo tooghayo waa marti
malaha sadcaal bay ahaayeen oo dhulkay degganaayeen bay saantooda u jeeddaa maya waa culimo aan reeraba lahayn iyo xeer qur-aan aan waxbarasho mooyee tacab xoolaadba weli u soo jeesan maya waa rag xoolo baadi ah oo ay diraacdu kala fidisay ku raad jooga oo hoyasho mooyee aan socod kale oo habeennimo laga sugin qoladay doonaanba ha ahaadeene ragga bulaanka iyo qufaca aan jirin iska soo hormariyey waa marti halkan buu dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsani ka muuqanayaa waa diraac waa nacfiyari waa ciidan xumo waa biyo la'aan laakiin waxaas oo idili duqa qoyska u weyn kama baajin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan u warramo uguna dul sheekeeyo si ay martidu gogol u hesho xubnaha qoyska ciidda seexanaya si ay martidu caana u hesho xubnaha qoyska dib jiraya haddii ay dani timaado oo xoolaha wax deeqa iyo wax la looga laga waayo ama ay iskaba yaraadaan martiduna badan tahay duqa qoyska lagu soo hoyday waxaa u bannaan inuu darisyada u qayshado oo wuxuu hidin karo wax loogu soo kordhiyo ama martida qaar laga kaxeeyo ninka ama duqa qoyska ee aan tilmaamayo wuxuu u taagan yahay soomaalida raacatada ahayd ee uu xilku dhibi jiray waa nin og inuu berri ka maalin isna reer ku soo hoyan doono waa nin magac ilaashanaya oo aan doonayn in laysdhex xuliyo hebel laguma hoydo oo martidu ka seexda waa nin dhaqankiisa u hoggaansan oo aan rabin inuu bulshadiisa tuka baalcad ka ahaado isweydiintuse waxay tahay xilli daraaceed oo kulul waxaan martida iyo qoyska isugu soo beegay guga iyo dayrta aarmay miyaan martidu socon waxtarna u baahnayn waa isweydiin meesha ku jirta waxbaan se uga jeedin wax badan adoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinimo kugu tallaalan iyo inaad martida u xilqabto 10 halaadi ninkii u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso waxaase xildhibaannimo iyo martigelin doorii ka muuqataa hasha keli ahayd ee u irmaanayd ninkii martidiisa ugu deeqay oo isagoo og inuu calool maran ku seexanayo haddana isugu muujiyey nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada kaftan kale ee uu xadheedinayo dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsan sidaas buu ahaa ama u dhowaa inkastoo ay jireen rag iyaguna martida ka seexan jiray oo socoto aan aqooni gaf ahaanba ha ugu soo hoyatee nin ogi uu sanduuq iyo diraactoona aqaladooda ku soo hambaasi jirin raggaas iyaga ahi raacatadeenna kuma badnayn waxayna u dhaqmayeen si ka baxsan anshaxa wanaagsan siday bulshadaasi inteeda kale u tiqin taasaana u keentay quursi iyo cay joogto ah oo xataa warasada ku abtirsata aan ka harin dhaqanka soomaalida ee raacatada ku saabsan kolkaynu suugaanteenna gaar ahaan maansada ka dhex goobno waxaan helaynaa gabayo aan tiro yarayn oo ammaanaya martigeliyaha wax u quura kubkubooraha sadcaalka ah caayayana muudalka bulshadeenna raacatada ahi ay yeesi jirtay waxay bulshadeennii hore tiqiin tilmaamo dhowr ah oo ninka ku sheegani ahaa nin horaad nolol dheer loo jeclaado geeridiisana laga naxo waxaa ka mid ahaa geesinimada xaaja aqoonta marti u roonaanshaha xaragada dulqaadka iyo aftahamada martida oo si fiican loo sooraa waa tilmaan uu gabayaagu dadka kale ku ammaani jiray isna isku ammaani jiray hadduu isku ogyahay waa tahay suugaanta martidu waa tan badane maxaan dhagaystow tusaale kaaga dhigaa alla ilaahay aan ku bilaabo gabayaagii la odhan jiray cismaan sharmaarke oo ka midka ahaa raggii sadanada hubyood magaca ku lahaa malaha isaga iyo suldaan cali yuusuf baa khilaaf kala dhex galay markuu u qaatay in laga jid bixi waayeyna wuxuu tiriyey tix cabasho ah oo uu ku muujinayay tilmaamaha wanaagsan ee ay la ahayd inaan joogistiisa looga maarmi doonin tilmaamahaas iyaga ah waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacneed ee uu islahaa waa lagugu yaqaan tixda oo dhextaalkeedu yahay sow la tabi maayo wuxuu cismaan ku yidhi tixda gabay guraasow baryahan daayay tirinteedii xalaantow ka soo iri hurdada goor dalool tagaye waxaan tabayay mooyee anoo taahayaan kacaya halkiiyo 10 jirkaygii waxaan tarayay laydiidii boqortiishihii aan ahaa laytixgelin waaye kol haddaan tawalo oo u kaco tu aan la gaaraynin 5 halo aan laga toobanayn sow la tabi maayo
shantaas hal aan idinka sheego tii marti u roonaanshaha ee ahayd erge toban habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan looga waad igu taqaaniine waa laygu wada toosayaa taajirsaan ahaye gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo. agagaarka berbera ayaa waxaa isna beri ku geeriyooday nin la ohan jiray xirsi cilmi goole oo malaha ay bulshadiisu aad u jeclayd. warkaas naxdinta lahaa dadkii maqlay waxaa ka mid ahaa gabayaagii la ohan jiray cali jaamac xabiil kaasoo dhacdadaa ka tiriyey gabay baroor diiq ah oo ay murugo qoto dheeri ka muuqato. ninkaa geeriyoodayna uu ku ammaanayo isagoo sheegaya tilmaamo 6 ah oo uu lahaa dartoodna uusan ku iloobi karin. tilmaamahaas oo ay martigelinta wacani ka mid ahayd wuxuu ku bilaabay galgaladkii xalay iyo faaraxow gamaan la'aantayda gubashaan ku jiibsaday hurdada goodka igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gawska uga daayay dar guryihii ka yimid baa warbaasi la soo galay ee gablamooyin waxay ii wadeen guul darriya hooga geeridii xisay sheegayeen gacal hawaayeene gabbal baa u dumay reerihii galiga boociyii la abidkii rag waa go'i jiree tanise waa gow ee 6 hal oo u wada gaar ahaa gocanayee mooye. 6daas hal aan idinka sheego tii marti u roonaanshaha ee ahayd gab hadday martidu soo tiraa gooru nala joogo godka lagu janneeyo hadduu goosan la carraabo garab saarag weeye hadduu gogasha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl bay isgamiimee hadduu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gocanayee mooye. hooyoo ku dhimo martigelintiisu ma ahayne waxa uu bixinayo raalli buu xirsi ka ahaa waana ku raaxaysan jiray. waxaadna ku garan jirtay qosolka iyo xasaawaha uu martida ku jalbeebin jiray intay xeeriyaha daribta ah iyo doobiyada caanaha ah shaaribada kula jiraan. waa taadeeqda dhabta ahayd siday soomaalidii raacatada ahayd oo aqoonsanayd. axmed fiqiid oo ilka dahab ku magac dheeraa ahaana gabayaa aad dalka Soomaaliyeed looga yaqaan gaar ahaan gobolka Mudug ayaa bari taxwaana u jeediyay afadiisii dahab xaashi. arrimihii uu ku waaniyay waxaa ka mid ahaa inay martida u roonaato oo kolkuu joogo isagaaba joogay kolkuu maqan yahay aan reerkiisa martidu ku hungoobin. qaaflaydiisii waxaa ka mid ahaa qaamowraan martida waa inaad quruxu soo dhaayo waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne waa inaan culimada qadsani qoyska soo marine qaariga markaad aragto waa lala qashuucaayo qadar loo karsho iyo neef la qalo waa qamacadaane hala quursan qadaw caanaheed qabax yaraad hayso aniguba qorqoda maahiyoo kuuma qayb xumiye adna qiimiley iyo ahaw qaafaday dumarka. dhegaystayaal sida ay martigelinta wacni dhaqankeennii hore ugu ammaanayd si leeg ayay mudalnimada iyo marti ka seexashaduna ugu dhaleecaysnayd. beribaa waxaa isu gebi jiray gabaygiina meel xun ka gaaray labadii nin ee maansada caanka ku ahaa waa qowdhan ducaale iyo cabdigahayd warsame baanji. gabayo aan waxba la isula halin oo istiracay gaaray ayay ahaayeen. wax tixaha la isku warmeeyaba qowdhan baa u bayray wax ka sheega warsame waa cabdigahayd aabihiise isagoo ku cambaaraynaya inuu ahaa xaajama yaqaan faqa ragga laga qarsado ama laga eriyo oo aan garta aqoon iyo muudalnimo xagga marti wax uquurka. waxaa tixdii qowdhan ka mid ahaa shir dudda ah haddii laysu tago dagalka gaaroodi oo raydabkii loo dugsiyey dahar la waageeray daaroon murantay baanaha markii laysku wada daaray halkii raaga loo dooni jiray daabicii ficilka dalaabuu ahaayoo warsame loo dambaabiray waa tii faqii laga diruu daababkii qoraye darka ee luguudu ariyaha didiya mooyaane inteebuu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay. marti daashay oo goor maqriba dadabta loo heelay inuu meyd digaaga u qalo dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogi. suugaanta dhaqanka martida ku saabsani intaan iyo wax u dhowtoona kuma dhammaan karto. haddaan si anbaqaadi lahaa waqti baan ii ogolayn. intaan sheegay duruucda lagala bixi karaase waxay tahay qofka Soomaaliga ah ee martida si wacan u maamula inuu qadarin iyo ammaan bulsho ka heli jiray. waxa uu haysto kii kala xishaa
inuu isna dhaleecaysnaa bar madow oo fool xunna uu ansaxaasi maqalihiisa ku ahaa. tolow dhaqankaas marti u roonaanshuhu maanta xaggee buu marayaa? raacatadeennii ma sidii bay ugu dhaqmaan mahmaadii ahayd dhawaaq meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow, mase waa la reer magaaloobay oo qoys waliba xigtiisii buu dhacanta u soo rogtay? anigoo aan su-aashaas maankaba ku hayn ayaan dhammaadkii 70-adii socod cilmi baarisa ugu kacay gobolka hiiraan iyo mudug. culimo talyaani ah oo aanu isku arrin ahayn ayaa ila socotay. shiiraha beledweyne iyo matabaan u dhaxeeya intaanaan gaarin ayaan ku soo baxnay geel daaqaya, amintuna waa diraac aan sidaa u kululayn. baabuurkii intaan joojinay ayaan u gacan haadiyey barbaarkii geela dhex joogay. caana xoor leh oo aan dhamo goor iigu dambaysay ayaan garan waayey. kolkaas baan ka codsaday inuu hal noo soo liso. nimankii caddaanka ahaa isagoo ka yaaban ayuu xaggee geela u dhaqaaqay. wax yar kadibba waa kan isagoo biro buuxa ii soo taagaya. markaannu ka dharagnay ayaan lacag warqad ah intaan jeebka ka soo bixiyey barbaarkii hoo ku idhi. igama uu yeelin. maxaa dhacay markaan idhina wuxuu yidhi isagoo ilka caddaynaya, geela dhexdiisa caanaha kuma gadanee magaalooyinkaannu u safrinaa kolka ay beeca naga yihiin. wuu iska dhaqaaqay. lacagtii baan jeebka ku ceshaday. kolkaas buu culimmadii talyaaniga midkood igu yidhi, inanku lacagta muxuu u diiday soo caananama uu siin? waxaan ku idhi, anaa kuu sheegi doonee ina saar baabuurka. dhegaystayaal, barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo maanta ku saabsanaa soomaalida iyo dhaqankeeda martidu intaa ayuu noogu idil yahay. fanka iyo suugaanta. dhegaystayaal, waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jalbeebiyo dhambaalkii saxarla caamir. dhambaal weeye naxdimeed oo ay ii soo dawisay da'yarta soomaalida ee reer miyiga ah gabar ka mid ah. gabar weeye ay gamuunada dhibaatooyinku dhinac walba ka asiibeen, asii aan aqoon cid gaar ah oo ay gamuunadaas u aanayso. dhambaal weeye khaas ah oo aniga oo qura loogu talagalay, asii aan goostay inaan dhagaystay adigana kuu soo gudbiyo kolkay ila noqotay inuu ku khuseeyo. dhambaal weeye eed sheegad oo la doonayo inaadan dhagaysan oo keliyahe aad wax ka qabato. waa cabasho u baahan hiilkayga iyo guud ahaan hiilka bulshadeenna. dhambaal weeye ay saxarli soo qalin daraalaysay, ha yeeshee ay hablo badan oo la da'ahi la qabaan, la murugoonayaan oo la cabanayaan. inaan dhibaatada la qaybsanno oo la naxno oo qurah miyay tolow saxarli doonaysaa? maya. waxay doonaysaa wadajir inaan wax kaga qabanno hagardaamada aan iyada oo keliya la soo gudboonaatay boqolaal habla ah oo ay isku gada yihiin. xorriyaddii shakhsiga ahayd inta laga qaaday ayaa saxarle loogu adeegtay sidii qalab aan hadlin, aan fakarin, oo hadba docdii la doono gudaha aqalka laga soo jeediyo. waxba yaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqaddeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo, iyada iyo kuwa la midka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rid. waxay saxarli tidhi, walaal ku salaami maayo, salaan iyo hadal macaan niyad uma hayo. laabtayda ayaa hugmaysa
indhahayguna webiyaal biyo ah oo kulul ayay daadinayaan. garbasaartii aan keligeed lahaana sidaan ilmada ugu tirayey ayay catir u ekaatay. markaan halkaa marayo ayaan eegay dhammaadka warqadda iyo qofka ii soo qoray. waa Saxarla Caamir. warqaddii ayaan dib ugu noqday. xorriyaddu sidaa tidhaahdaan waa wax qaali ah. ma aqaan falsafadda, mana aqaan siyaasadda, laakiin waxaan dareemayaa inay lagama maarmaan tahay qofku inuu aayihiisa ka tashado. berigii aan miyiga joogay ee aan tuulooyinka aryaha aroorka a keeni jiray, waxaan raadiyaha ka maqli jiray ummad waliba xaqa ka talinta aayaheeda iyada ayaa iska leh, lagamana qaadi karo. hadda ayaan is idhaahdaa, hadday ummaddu tahay qof qof meel ku soo ururay oo batay, sow ma habboona intaan aaya ka tashiga ummadaha lagu adkaysan in midda qof ahaaneed xaqiijinteeda loo howlgalo. iga raalli ahaw haddii aan dhex galay arrimo aanan aqoon u lahayn, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa intaan dareenkayga kuu soo gudbinayo inaan dhex dabaasho arrimo aanan weligeed u dhabagelin. waxba yaanan buura jeexine aan qalin anqaastiistu dhiig tahay kuugu soo gudbiyo guuldarrada ila soo gudboonaatay. inaad iga naxdo kuugu sheegi maayee, waxaa iiga daran inaad niyad ahaan ila safato. laga yaabee wax weyn oo guuldarro lagu magacaabi karo inaysan kula noqon, maxaa yeelay dalkeenna maalin kasta ayay tan i haysataa ka dhacdaa. soomaalidu waxay tidhaahdaa war la og yahay xiise ma leh, laakiin waxaan ogaaday inay tahay mahmaah runta ka fog oo aan kolley xaaladayda lagu dabaqi karin. miyaan badiyey? haa. raalliga ahow mar kale aan hoos u daadego. sanadkii 1962 ayaan ku dhashay miyi ka tirsan bartamaha Soomaaliya. qoys sabool ah oo ari mooye aan iskin lahayn, beledna aan wax u jirin ayaan ka dhashay. kugu daalin maayo inaan kuu sheego arrimo aad ogsoon tahay oo ah waxa uu qofka da'dayda ahi miyiga ka qabto. oradka qoyska ayaan ku xigay, sidaa darteedna waxaan durba noqday gabar ay hooyadeed ku nasatay oo howlihii badnaa qaar ka hanatay. mase jiraan waxyaabo sheegid mudan oo aan kaga duwanaa carruurihii badnaa ee aanu casinta ku kulmi jiray amaba aanu ceesha ariga wada keeni jiray. xagaagii 1978 annaga oo degan agagaarka tuulada Jecdheer ayaa waxaa meel noo dhow awrgeeda ah ku soo furtay nin qiyaasta 55 jir ah. inkastoo uu daaqii nagu xiriiriyey, fagaagii aryahana naga soo xadeeyey, haddana aabbahay iyo beeshii aanu isku degmada ahayn wax hiif iyo habaar ah uma ay geysan. kadib ayaan ogaaday ninkaas iyo aabbahay inay horay isu yiqiineen oo ay ceelka isku barteen. isla baryahaasba waxaan arya daaqeenka isku barannay gabar uu ninkaasi dhalay oo aniga aan wax badan iga weynayn. waxay ahayd gabar sheeko fiican oo aan haddiiba jeclaaday. had iyo jeerna aryaha isku meel ayaanu u soofin jiray ilaa uu aabbahay igu canaantay inta aan gabadhaa la sheekaysanayo riyo badani inay abaajiyeen. canab iyo anigu waxaan jeclayn inay labada reer si joogto ah u wada degaan. maalmaha iyaga ah ma aanu ogeyn guuldarrada ay waayuhu noo kaydinayeen, mana aanu ogeyn inay midiba tan kale reerkooda necbaanta ugu daran necbaan doonto. laakiin aan kuu sii sheegay nacaybkaa isaga ah labadayada midna ma abuurin. yaa abuuray waad ogaan doontaa. markii uu daaqii sii daba yaraaday ayaa raggii ku tashaday in la rug doorsado oo meel ruumanka la degan yahay ka wanaagsan xoolaha loo raro. aabbahay iyo guutaale waa ninkii nala soo degay ayaa loo doortay inay beesha u sahan tagaan. canab
iyo anigu aad baanu ugu faraxnay maxaa yeelay labada aabbe oo israacay waxaan u qaadannay inaannu wada guuri doonno oo ay sheekadayadii macaanayd noo sii socon doonto. taas iyada ahi way hirgeli lahayd haddii ay wax waliba sida caadiga ah u dhici lahaayeen, laakiin wax waliba si lama filaan ah ayay u dhaceen. siday ila tahay mararka qaarkood tallaabo qurax ayay samaanta iyo xumaantu qofka u jiraan, laakiin garan maayo waxa inta badan tallaabada iyada ah xagga xumaanta loogu qaado. maalinta iyada ah ee aabbaha iyo guutaale beesha u sahan tageen, haddii ay hal tallaabo xagga samaanta u qaadi lahaayeen, walaaca aan maanta ku jiro kuma jireen, adigana warqad kuguma wareeriyeen. miyaan badiyey? haa, raalliga noqo oo ii dulqaado. aabbaha iyo guutaale intii ay sii socdeen waxay ka sheekaysanayeen daaqa, biyaha barkaduhu siday u qaaliyoobeen, iyo dhulkii kaymaha ahaan jiray nabaad guurka ku dhacay. qorraxdii markay kululaatay oo ay isku afgarteen halka beesha loo soo rari doono, ayay geed quraca hoostiis fadhiisteen. caku geedkaas mar qurax ayay garwaaqsadeen inay sheekadii ka dhammaatay. midkood waliba wuxuu raadiyey mawduuc xiisa leh oo laga hadlo. markaas oo kale waxaa iska caadi ah in cabbaar la nasto oo inta dhacdiid la isu tuuro addimada loo raaxeeyo, laakiin lama yeelin. aamus yar kadib ayaa waxaa mawduucii laga hadli lahaa helay guutaale oo yidhi, caamir, labadeennaba dumarkii naga gaboobe oo intaa oo carruur ah ayay midiba leedahay, dal dambana kuma harin oo ka sugi mayno. kollayba rag waa hawo oo inaan guursannaa waa lama huraane, maxaynu yarad u bixinaynaa? aabbahay oo aan dulucda garan ayaa yidhi, oo walaalow maxaynu yeellaa? wuxuu yidhi, gabar inan ah ayaa ii joogta, adigana tu la mid ah ayaa kuu joogta, maynu isdhaafsanno halkaana gabdha reerood yaradkooda iyo canaadka waalidkood kaga fursanno. aabbahay oo aan lahayn iskin yarad loo bixiyo, hadduu haysan lahaana inuu bixiyaa ku adkaan lahayd, aad buu bareeraha ugu farxay. isla goobtiina hawraarsan buu ku yidhi, caku goobtaas. iyadoo labadayadii sidii laba maro isu dhaafsaday ayay dhinacii reerka u soo carraabeen. wax badan iyagoon geedkii ka soo fogaanna waxay ku heshiiyeen arrintaas inay si degdeg ah laba bari gudahood uga salgaaraan. meel dhexe haddii la soo marayo ayuu guutaale xusuustay tayro dugsiley ah oo wadaad sida wax loo meeriyo yaqaani uu joogo, in yarna u jiray halkii ay marayeen. wuxuu yidhi, caamir, intaynu xilligan jiilaalka ah wakhti ku lumin lahayn wadaad raadin, maynu dugsilayda aan haddaba naga fogayn ku leexanno oo weyddiisanno inay labada gabdhood noo kala meheriyaan. aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi, waa yaab, mar walba guutaale ayaa talada keena, mar walbana aabbahay waa ka yeelaa. maxay ku dhacday? garan maayo. wadaadkii kolkii loo tegay caku wadaadkee, wax waliba siday labada oday ugu talagaleen ayay u dhaceen. waxay saxarle tidhi, heshiiskiisii loonaa ee aabbahay iyo guutaale dhex maray macnihiisu muxuu tolow ahaa? waxaa la igu xukumay inaan afadii guutaale noqdo, canabna ay afadii aabbahay noqoto. saaxiib baannu ahayne waxaana lagu xukumay midiba inay tan kale aaye u noqoto. kala fogaa saaxiibnimo iyo aayanimo. dib looma dhigan, wakhtina la iskama lubin. ninba gabadhiisii ayuu fiidnimadii xoolihii oo aan soo xiroon u sheegay. bal malee wixii dhacay. annagoon is ogayn kuna tashan ayaannu bareerahaasi loon ku gacan sayray. ha yeeshee diidmada hablaha yaryari sida la og yahay miyiga caku miyigee qiimo kuma leh. sida uu ridiisa u bixin karo ayuu odayguna gabadhiisa u bixin karaa, wax lala yaabana ma aha. midda kale, gabar kasta oo reer miyi ahi maya ayay tidhaahdaa marka hore oo in nin la siiyey loo sheego, kadibna jajuub dartii way iska yeeshaa. sidaas awgeedna
diidmada habeenkaasi labada oday wax dhiila ah ma gelin. hooyaday iyo canab hooyadeedba markay warkii maqleen ayaa argagax ku dhacay oo masayr ay la madax wareereen. mid waliba ninkeedii ayay wejiga u kaduuday oo haruubkii caanood u dhiibi weyday. beri haddii la joogay ayay aabbahay iyo guutaale guddoonsadeen in labadii dumar ahayd la dhisto oo la aqal geysto. guutaale ayaa ra'yi soo jeediyey oo yidhi, caamir, si aan dadku ugu malayn inaannu gabdhaha isdhaafsannay oo aan naloo caayin, aan midba mar dhisanno kalana dambaysiinno oo aniga marka hore gabadhaada ii dhis. aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi. waa yaab mar walba. guutaale ayaa talada keena mar walbana waa ka yeelaa aabbahay. aqalkii la igeyn lahaa